waxay dib ugu noqonaysaa maanadi awowgii xasan cawke aabbahay uu ka weynaa haddana saaxiib lilaahi ahay cabdillaahi bal taariikhda cajiib haddana aabbahay iyo axmed baa saaxiibay laakiin aabbahay baa daahan weynaa waay haddana aniga axmed baa 20 sano asxaab ahayn waay وده هو أصحاب لما تصلوا الله يحسن عوكنا وكوينا لا يهون حريستي دي سنوي كوينا واي مركا عقول باش وقري سديبو يمكن نلاقي نتهاية تلقى أصحابك من الوقت nabadda iyo naxariista ee badhamaantiiba korkiina ahaato waa anigoo ah cabdilaahi maxamed cali oo idinleh soo dhawaada waraysi aan la yeelanayo wariyaha aad wada garanaysaan waa cabdisalaan ibraahim hereri oo toddobaadkan aanu ka waraysan doono arrimaha saxaafadda waayaha uu kala kulmay iyo dabcan isaga lafahantiisa taariikhdiisana wax ka weydiin doono waraysigana waa qaybtii koowaad iyadoo qayb labaadna aad daawan doontaan marka ugu horeysa cabdisalaan hereri ayaa jeclay barnaamijkeena iskembaro dabcan waa taqaanaan laakiin cabdisalaan hereri waa kuma ayaan leenahay cabdisalaan marka ugu horeysa waraysiga iyo barnaamijkaba waan kaaga mahadnaqayaa inaad naga ogolaato waxaan ku leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kuna soo dhawo waraysigan soo dhawo baan ku leenahay cabdilaahi aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo qaysba waa idinka mahad celinayaa barnaamijkan ay ugu marti qaadeen sharaf bay runtii tahay adiga gaar ahaan barnaamijyadaada iyo waraysiyadaadana aad baan u daawadaa marka haddii su-aashaada ka jawaabo walaal waxaan ku dhashay Hargeysa bari aan sii fogeyn waa sidaas inkastoo ay tahay marba dhinaca laga eego iyo marba cidda aan la hadlayo waa run 66 baan dhashay Soomaalida sidaad la socoto dadkeena lixii markaa qaar fara badan ku yidhaahday arrin yar baa soo shalay baad dhalatay dee dunida kalena retirement age-giiba lagu dhowi waa run 53 jir baan imika ahay waa run ilaahay mahad ka gaadhe si wanaagsan iskuulka Hargeysa ka galay Allah u naxariista aabahay baan ka shaqeyn jiray baa marba meesha loo bedelo aanu raaci jirnay qoys ahaan xamar baan 2 sanadood ka dhigtay Kismaayo aanu joognay mudaan badnayn oo ilaa sanad ku siman markii dambe Hargeysa ku soo noqonnay noloshaydu intii aan wadankii joogay Hargeysa u badnayd ilaa dugsigaygii sare Hargeysa Farax Umar baa dhigan jiray marka waxbarashada ka soo koob waxa dad fara badan oo bariga aan isku kacaan ahayn ayaa aad iyo aad ugu yaqaaneen dhinaca ciyaaraha oo ninkan culus aan arkaysan Cabdilaahi de bariga saawan cuslayn basketball kan ciyaari jiray labiyi state kan gol 16 jir Hargeysa ciyaari degmooyinka 83 kiina ciyaarihii gobolada oo ahaa tartanka ama tartanada ugu caansan Soomaaliya kamid ah waaga ayaa waqooyi galbeed aad ciyaari jirtay aan ciyaarayay dabadeedna ama aan ilaahdo fuleydii ugu horeysay wadanka ka soo carartay baan ahaa ama aan ilaahdo dadkii indheergaradka ahaa ee gartay meesha wax ka soo socdaan baa kamid ahaa marka hore adigu 3 December ayaa soo baxay abdooga sanad iyo bar joogay transit ku dheeraaday baan ahaa dad halkan aan what marka la 3 UK baad ayaa ku tirsanay ma halka 3 way su'aal baa iyadu noqonaysa magacan Cabdisalaan Ibraahim Hereri Cabdisalaan Hereri baa la Hererigan ma adiga leh mise abaale ilaahay oo naxariista aabahay ayaa yaraantiisi walaal Hargeysa joogi jiray dabadeedna abtigi oo baa mushtari weyn ka ahaa Herer oo barigaade ahayd magaalada Herer xarun ganacsi oo weyn ahayd xarun diinta laga barto ahayd xarun xadaarad fara badan iyo taariikh fara badan taala ahayd ayuu ugu tagay abtigi markuu ka soo noqday iskuulka Sheekh Uuladii la qoray ayaa dabadeedna ayuu magacan Hereri halkaas ka raacay la soo raacay aniga 3 kiiba ma igu horeysay magaalada aan magaceeda wato way aragtaba laakiin marka la yiraahdo
cabdisalaan ibraahim maxamed horta baasaboorkun bay igu taallaa laakiin kuguma taaleen laakiin haddii la yidhahdee cabdisalaan ibraahim anigaa saatalo ninkan laga hadlaya waa iska sii fadhidaa way laakiin magacaaga dad badan baa khalda deegaamada soomaalida qaarkood dadka ku daawada kula socda magacaaga marka qaarkii dad qaar waxay dhahdaan xarari waa runtaa marka see dareentaa marka magacaaga dadka qaar sixi waayaan weliba dad shiracaan oo walaal hareeri la yidhaa koonfurta inta badan hareeri bay iigu yeedhaan weliba ciddii aan magaalo ahaan u garanaynin iyo magaca halku ka soo jeedo markaa ma kala fogo in aniga laga hadlayo waan gartaa mar haddii hareeri la yidhaa iyo haddii hareeri la yidhaa saddexdooda way cabdisalaan way waxaad tiri 83 baad UK timid goorma saxaafadda markaa bilowday adugu xambiga saxaafadda goorma kugu bilaabay wallahi walaal sidaan dhowr goor hore arrintaa layga wareystaba sheegay cabdilaahu haddaan ku idhaahdo hamiga saxaafaddu wuu igu jiray waa beentay waxaaba jirtay allah u naxariistay cabdikariim xaaji ducaale oo madaxdii iyo dadkii budliga u ahaa warfaafinta soomaalida ka mid ahaa ayay aabbahay saaxiib aada u ahaayeen labadooda waa allah u naxariistay markaa cabdikariim baa anigoo form 2 waa 82 oo aan isba lahayn idaacad iska daa iyo warfaafine kubadiyo iskuul wax dhaafsiisa bacdi kuu diranaysaa ismaan lahayn cabdikariim baa wuxuu igu yidhi war idaacaddaan ku qoraya waa radio hargeysa galabtii maadimo bar time anigii shock baabay igu noqoto waxaan soo odaygii talow siday ka noqotay dee ismaan lahayn cid baa shaqo kuu diranaysa dee 16 jir baan ahaa weliba idaacad kuu diranaysa laakiin waxaa jirtay dhalinyaro iskuullada nala dhigato kuwa foofoorada ah oo dee naga yara roonaa oo ilaa 20 jir ahaa qaarkoodna kama weynaayen berigaa ayaa gelinka dambe cabdilaahow bar time kaga shaqayn jiray idaacadda warbaahinta lahaa taasaa jirtay wax idaacad iyo warbaahin sheekadeeda ku saabsan dabadeedna halkan aan imi college baan galay coros anigoo wada community care waxa loo yaqaan waa dadkan ka shaqeeya daryeelka bulshada oo shaafiil jooga markay hargeysa miyaad gashay idaacaddii may waaba naxay bas wanaga kula waad ka soo istaagtay markaa odaygii waxaan ku idhi adeer anaa kuu iman doona laakiin dad uma tegin وانا ليش شيء إني إذا عدي أنا إذا كفوقين حافظ أنا مركا حلقة مركا وحستري واحد حردا سيكودري حردا سيكودري بس قاري قد لعوه هيد قاري قراي بريبوري قد كقادن شري هرقيسة قاري إذا عدا قاري قاشان لوري قاري قاشان شري كا حريه دولة دم بكوار كشريه شدت كي يدري غدا برجع بس كبي كاي قلي وي ما يربطي اسمع الله هين اسمان دقيقين دين ده سو إذا عاد كشقين كلام وأنا كل اسمع الله هين با كبد يسكول مويا واحد في سبعة كودر رئيس واي كانت إغلان تمدون بعض إغلان مركاني مي أنتي هرا كل ده يقوم يشرين واي أنا جو كورس كا وده community care كا سبب تنو وده إنه ولا الله حياة هيد برجع ومركي تقالوا ذا كده قوية تبدأ تدفر بدن تدخل جوري ترى هاند بدنا قحوتي هذا هلك شو قلي واصلة حريا قحوتي يتوبي كيمني واصلة تبدأ تدخل لها هند بروفيشنالز أو توابرن علمها بالشدة العاوز واصلة تدنو حركين هلك السوق لا لا مركب واحد كيو يو كي مركب شافيل بتشوي شافيل واي لندن وكجوري واي تدنا وحركين السوق لا لا واي أو سيدا ده كود ورهينه qof kasta qofka uu ku soo dego ama ehelkayna ma yasacatay ayuun ba caawin jiray oo wadadiisa la mariyay isaguna marin jiray deedna waxaan isiri kooraskaas aan bilaabay oo wan yeeraha waxa markaa isku beegmay ninkii macalinka nooca ayaa wuxuu madax ka ahaa barnaamijyada ka baxa radio Sheffield ee community programs ka loo yaqaan wixii aan af Ingiriis ahayn oo BBC markaa waa BBC da BBC gobol waliba wuxuu leeyahay BBC da BBC radio Sheffield
dabadeedna ninkaasaa madax ka ahaa wuxuu arkay in tira ahaan soomaalidii markaa ay magaaladii kusoo badanayso wuxuu igu yidhi haddaynu barnaamij bilowno af soomaaliya 15 minutes sabtiyada ka war waa lagula daba socdaa hadday la hargeysa waa layla daba socda soo maaragtay dabadeedna cabdillaahi waa meel ilaahay wax ka wadeen markan dee waan roonaaday nin weyn baan ahaa waxa weeye 89 jir baan ahaa dabadeedna ninkii waan ku yidhi why not I can do it waa samayn karaa dabadeedna anigu waxaan ka fikerayay just for fun wax sabtiyada aan ku madadaasho oo dhallinyaradii aan asxaabtahay inaan heesa halkaa uga soo saaro ninkii jacabsanoo saaxiibadii la hadlay hawada kala hadlay dee walaal arrintii aan gacanta ku hayay ee ahayd inaan community weerkar noqdo halkeed ku laabtay horta intaan laalaabay ayaa kooraskiina mid kale oo miidiyaha ku bedelay oo markii radio Sheffield bilaabay ayaa waxaa jiray dhambaal baa la odhan jiray barnaamijka magac buu lahaa barnaamij walba oo luqadaha kala duwan ku baxa Soomaaliga dhambaal baa la odhan jiray marka iyagu kugu wehelinaya adigana marka aniga Maxamuud Xasan Soofe iyo Cabdi Saleebaan laba nin oo la yiraahdo Sheffield dabadeedna kooras baa soo baxay dadka madowga ah lagu dhiiri gelinayo inay miidiyaha galaan waa dadka madowga ee gobolka ku nool Yorkshire maadaama aan idaacaddii dee ka mid ahaa kooraskii baan abalaagareeyey iyuda fadgaraynaysay kooraskii baa laysiiyey 12 qof oo keliya ayaa la qaadanayay dabadeedna soo lama odhan jiray faritog dheer bay kula xeshaa dee waa taa cabdillaahi sodon baynu ka hadlaynaa way BBC soo wareegtay markii dambe laanta Soomaaliga raagin Sheffield 90 July 89 bay ahayd markii aan bilaabay radio Sheffield sanad keliya ayaan joogay BBC-dana waxaa aad iyo aad ii caawiyey khibrad badan oo la sheego warbaahinta amaan lahayn laakiin xagga da'da walaal ayaa aad ii caawisay afrilaad shir baan ahaa recordkaan weli haystaan cabdillaahi dee ciddii ugu haysataa ha soo baxdee ninkii ugu da'da yaraa ee ilaa maalintii la furay soo maray ayaan ahaa marka dee ciddii taa igu qabsanaysaa soo maxaad BBC kala kulantay marka BBC-da waxaad maqli jirtay hargeysa aad ku dhageysto oo laga yaabaa inaad ka maqli jirtay makhaayadaha kale leedo ka socota xilliyada hore xilliga dee odayga adeerka ku yiri kaale idaacada ka shaqee BBC-dii baad timid Bush House baan imi waxaan kala kulmay oo ilaa imikana aan ilaahay ugu mahadnaqaa asxaab aad iyo aad qiimo u leh oo professionka ay ku jireen ama xirfadda ay dadka ugu adeegayeen ahaa beriga inta laga tilmaamo way arag badan waxa la oran karaa waxay ahaayeen de creamkii warbaahinta Soomaalida ee waqtiga Cabdillaahi Xaaji Maxamuud Xasan Dalmar ilaahay ha u naxariistay Yoonis Ducaale ilaahay ha u naxariistay Cawko mar dambe nagu soo biiray Yuusuf Xasan xildhibaankan Kamankuuji oo beriga lagu tilmaami jiray inuu ahaa wariyaasha Afrika oo dhan ugu wanaagsan iska dhaaf Soomaalida rag iyo gabdhahan kala dhicin ayaa meesha ugu gabdho weyn ku yaraayn laakiin gabdho weyn ugu yaraayn Sayid Maxamed Shaaco markaa wax nidila joogtay full time nala joogay markii dambe dhowr hablood oo kala yimaadeen dad aan qofna qof u dhiibanayn Cabdillaahi qofna qof u dhiibanayn waxa ku leeyahay qofna qof ka dhicin ayaa meesha ugu yimi si fiican ay soo dhaweeyay waxyaabay ugu cajiibsanaayeed kala kulantay BBC-da xilliga aday tahay way aragnimadii aad Sheffield kala timid ee hargeysa ku diiday iyo nimankii khabiiriinta la shaqeynaysay wariyaasha ee qaarkood magacyadooda sheegtay maxaa ugu cajiibsanaa markaad maskaxda dib u eegto Cabsalaan Bush House BBC-da ma joogtay imika adigina ma joogtid maxaad istiraahdaa waxaas ugu cajiibsan xasuustaa waxa laga yaabaa in dadku ay imika aad u xiiseeyaan oo de la yiraahdo ninka qudhiisa museum piece imika farsamada lagu shaqeyn jiray Cabdillaahi
sidaynu la soconno farsamada casrigii dee 30 sannadood ugu dambeeyey ayay kor u dhaqaaqday ayay dee maaragtay si fiican u dhaqaaqday isbedelkan xagga teknolojiyadda BBC da waxaan imi hatta waa 90 dhawaayi karo iyadoo Cabdilaahi type-kii la garaaco type-writer-ka oo bahalkii la soo celiyay cajaladii qarowday iyo cajaladihii wareegi jiray suxuunta recording-ka weyn la gelin jiray kuwaasaa waxna lagu duubi jiray kuwaasi waa ku reer Hargeysa meel la mid ahay exactly isku mid baa kuwaas wax lagu duubi jiray edit garayntuna makiinadii baa la isticmaali jiray inta la calaamadiyo markaa farsamada si aad sheegayso laga isticmaali jiray idaacadihii ee Soomaaliya iyo BBC laga isticmaalayay waxba kuma kala duwaneen anigu laakiin markaan dhowr bilood joogay ayaa kombiyuutarradii ugu horreeyay la soo dhigay marka waxda jiilashi la bilaabmay la bilaabmay farsamada cusub ragga meesha joogay إدريس حسن ديري سعيد فارح محمود rag fara badan ayaa meesha joogay oo run ahaantii marka aad adigoo hadda barnaamijkii la wada oo barnaamijkii live yahay ayaa wallaahi Cabdilaahi ragga codka ka baxaya iyo hablaha ayaa adigii waxaad u dhageysanaysaa hadii studio kula jiray sideed idaacad ka radio ka dhageysanaysaa kale waxay ahayd dad ehlo sharafa oo aad iyo aadna ii gacan qabtay kulligood aad iigu soo dhaweeyay warbaahinta ilaa imikana sidii baan asxaab wadan way Cabdisalaam wuxuu BBC kala tagay baa ay noqonaysa su'aashu BBC Cabdisalaam qiyaastaa 17 sanadood 17 sanadood Cabdilaahi waqti yar ma yara waxa kala tagay xusuuso fara badan oo wanaagsan laakiin nolosha ayaa horta isbedelka u baahan aad iyo aad degalkaad garan weydana waa laga dhaqaajiyo waa laga guuraa degalkaasan ayaan yara tixraacaya adiga iyo Allah naxariistay wariyaad aad isugu dhaweydeen intii dambe Axmed Xasan Cawki waxaad u baxdeen dhinaca Voice of America Washington ayaa tagteen iyadana ka waran markaas barbarigto Voice of America iyo BBC-dii iyaduna ilaa iyo 1956 oo Soomaali ku soo hadlaysay 750 ka waranta horta ilaahay u naxariistay Axmed Xasan Cawki maalin dhaweeyo aan inamadiisa Xasan iyo Sakariye halka kula kaftamayay ayaa waxaan ku war talabadeena family waxay dib ugu noqonaysaa maani awowgii Xasan Cawki aabahay uu ka weynaa haddana saaxiib lilaahi yahay Cabdilaahi bal taariikhda ajiib haddana aabahay iyo Axmed baa saaxiibay laakiin aabahay baa daahan weynaa way haddana ani Axmed baa 20 sano asxaab ahayn way oo dee waa asxaab 20 sano Allah raaxsan Cawki oo ka weynaa ilaahay uu naxariistay deysna way ka weynaa way marka waxa ku baasho qoriisu dhiibo imika inagayna taayta naga asxaabayna way marka labada inanba iyo kuwa kale ba Sakariye oo hambalyeynayna isaga laftiisa saxaafada ku jira asxaab way كم قريش كديم كله أصحاب حاجة صاحب تنمو حاجة صاحب تنمو وي حاجة سكسو بلا ميسا حاجة سكسو بلا ميسا مركب في هذا صاحب تنمو ده كنت كتير بقى صاحب تنمو ده سان كنت تجنو أناجو أرتو وح دمشي سشوجا متشرو وارن وح كستا سبدل بلي سبب ك يدك سبب كانوا أيه أما سيونا شيء أما ده سكلا كيالا وصله markii aan isu garan weynay sidii ay BBC u socotay waqtiga ayaanu iska dhaqaajinay niyadaadana uma fiicna meel aad ku kala hayso aad ka shaqaynayso permanent contract baan haysanay labada iyadoo waad ku caajisteen ismaroon waan ku caajisnay markaas maskaxdu kaaga xumaanaysa hadaad maartay meel aan niyo u hayn hadaad subax walba ku kala hadlo dabadeed waa iska dhaqaajinay waxaanu tagnay VO-da oo markaa cusbayd dabadeedna VO-da dadkii dee aad ugu tagteen dad asxaab nahay baan ugu tagnay laakiin duruufta markaa Mareykanka jirtay iyo VO-da ayaa walaal iyaduna ahayd mid waayaheeda wada nolol kala nooc kala
dhammaan nolol kale cusub waddan kale cusub waxa wixii oo dhan la isku fuuqsaday berigaa mushaharka aada u raagi jiray in badan baa la weydiiyey maxaa uga tagteen BBC-day garanmay laakiin VOA-da cabdilaahow maraykan meesha la yidhaahdo nin dowladdii adduunyada ugu magaca iyo dhaqaalaha iyo dee wax walba ugu horreysay u shaqo tegey oo mushaharkii 3 bilood dib uga soo dhacayo marka waxay leeyihiin waxay yiraahdaan government shutdown ama dawladdan marka qaarkii mushaharka aan la bixin taasoo iska joogtaa malaleeyay oo nooc kale waxay taasi marmar baa way dhacdaa waa taasoo kale oo nooc kale waxay ahayd beriga imika duruuftii ma jirto xalku caadi waxay ahayd markii nimankii maxkamadaha la oran jiray xabar qabsadeen waa sida ayay Mareykanku section iska fureen aanay funding u hayn waa sida oo Congress waanu approve karayn dabadeedna sectionada kale waxoogaa loogu soo gargarooci jiray dabadeedna wax qaraamaada ayaa mushaharka ugu qaadan jiray marka idaacad qaraamaada tagteen markaasaa maalin walba kaarkaaga baanka gelinaysaa male waa sugaysaa kooraad qaadanaysaa ma ogid deedna ilaahay naxariista jannaha ka waraa Allah naxariista maalin baan ku irun iyadoo aroortu kala shaqal naga sugayo wari Ahmed waa labadii kaliya wal meesha waa sii tagaynaa markaas wuxuu yidhi baryahan baa waan ogaa inaynu ka tegayna goormaynu ka tegayna saan ku yidhi aroorta markaasuu waa dhamaatay markaasaan ku yidhi caawna shaqo tegi mayno oo maxaynu ka doonaynaa wili maynu u shaqayn subaxdii baanu tagnay sheekada aad weydiisay waxay cabdilaahi soo xusuusisay aad iyo aad fani u ah markii aanu nin Jeremy Cooper la odhan jiray oo meesha haystay aanu labadii kaarmayska u saaray ayuu islaan Gwyneth la odhan jiray oo madoobaydo Mareykanka madow ahayd oo VOA-da qaybta Afrika haysatay ayuu noo geeyey labadii waa tagayaan buu oo saytiika dabadeedna Gwyneth baa waxay tidhi maxaan idinku joojin karaa wax kasta oo awoodayda waan idinku joojin karo maanta waan samaynayaa maxaan sameeyaa dabadeedna anigu waxaan ku yidhi maanta wax kastood samaysaa naguma fillo oo dee because boqol goor hore aan kuu soo cadan ilaahay u naxariistay cadowkii Allah naxariista wuxuu cajiib ku ahaa xitaa xaaladdu markay adag tahay dhinaca fanigaaga wax ka eegi jiray wuxuu ku yidhi Gwyneth wax ma ku weydiiyaa markaasay tihi haa cadowkii wuxuu yidhi maalin walba halkan waxaanu ka sheegnaa marka Afrika laga warramayo Guinea Bissau way ka dhacaysay oo askartii baa mushahar 6 bilood weyday oo madaxweynihii deyrka uu ka booday oo isagoo airportka si ag cararaya la sheegay koonkay ka dhacday oo suuqii bay bilaa qaysteen wuxuu yidhi haddii in the middle of Washington DC aanu ku mushahar laan maxaa Afrika waxaan uga sheegtaa waxay tidhi cawka tiini lama cunin wuxuu mar haddaan inay soo gaadhin in la cunay iyo in kale maxaanu ka garanaynaa laakiin xaaladdu imika isbedeshay asxaab badan baan ku leeyahay waxaad ugu tagteen weri daanduray oo kale iyo daanduray waaba naga wadi ka dambeeyey marka weriyaal furitaankii ugu horreeyey ayaad haydeen weriyaal weyn baa jooga marka waxaa joogay haydara waxaa joogay yabarow iyo dhalinyaro kale oo badan cabdisalaan waa kan ka gudbay dadku way kula socdaan nin u baahan meeting lagaaga warramo kelmadada haay inuu soo noqon doona iyada lafteeda ayaan su'aalka weydiin doonaa laakiin imika waxa tahay saxafi ka tirsan telefishinada London Universal laakiin aad baad u socdaashaa barnaamijyo socdaalaad leedahay markaas su'aashu waxay noqotay cabdisalaan isaga istira oo cabdisalaan waa ninka imika BBC-dana ka yiri waan ka soo taagnay oo ka dhaqaaqsan Washington iyo the VOA-dana wadiga aad ka warrantay ka waran socdaalada barnaamijyada aad ku socdaasho walaal barnaamijyada waxay u dhaliyay waxa ii muuqday Cabdilaaho inta badan warbaahintii Soomaalida guud ahaan markaad eegto waxay ku foogan tahay arrimaha siyaasadda waa sida dhinac gar waa lagaga siin karaa oo waxa weeye siyaasaddii waa wax inta badan dee noloshii dadka taabanaysa
ama amni ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama arrimihii kale bulshada ha noqoto siyaasadda iyo dadka Soomaalidu aad bay isku dhex galaan ayay ilaas dhowr iyo soddon sano ugu dambeeyay dabadeedna noloshii siyaasad kaliya maaha waxa markaa ii muuqatay inay bannaan tahay kaalin kale oo dadkana aan isleeyahay waxtar bay u noqonaysaa anigana indhaha iisii furtay mujtamaca Soomaalidu isbedel waxay nagu socdo walaal qaylaxada waxay nagu socdaa isbedelka meel kale kama eegaysa Cabdillah nin walba gurigiisu yaala isbedelka cid document garaysay ma jirto deedna anigu waxaan isiri barnaamijyo hadhow tixraac noqda oo marka la eegayo isbedelka ku yimid mujtamaca Soomaalida inaad soo qaadato dabadda meel laga dheehan karayo dhacdooyin kale sidii isbedelkii ku yimanayay jaaliyadda ama jaaliyadaha Soomaalida ee qurbaha dhinac walba dhinaca horumarka dhinaca ganacsiga dhinaca dib u dhaca dhalinyarada badan ee islaynaysa ama laynayo waxa sidoo kale ka warantaa oo barnaamijka ka samaysaa dadka aan Soomaalida ahayn oo wadamo ay tagtaa waxa kamid ah matalan Meelika iyo Geeska Afrika oo kale waxa kamid ah Ethiopia oo kale warshadaha tagtay oo tirada ka shaqeysay ay ku leeyihiin way yar tahay la yaabtay 7,000 qof oo wada 7,000 oo mashiinad dul fadhiya oo dharka Yurub lagu xidho dukaanada qaaliga lagu iibiyo safarada nooca markaad eegto waxyaabaha asraado way ugu cajiibsan oo raad bay kugu reebaan cabtaan ahaan maxaa kamid ah walaal su'aashay jawaabteedii hore ayay ku xidhiidhsan ummadda Soomaalidu ee jasiirad kuma noola waxaan ku leeyahay jaaliyadii Soomaalidan ka waramaya jaaliyadii waxay la nooshahay wadan bay yimaadeen oo ay soo magan galeen oo ay ka mid noqdeen marka si qofku sawir buuxda uga qaato waa in Cabdillah tilmaan laga bixiyaa dadkaasi wadankii ku nool yihiin wasada siyaasadiisa dhaqaalihiisa ilbaxnimadiisa alku dalkii joogay laftooda ba in arkaan marka labadii la isu geeyo ayaa qofkii sawir buuxa u soo baxaya waayo awal waxaynu ahayn markii halkan aan nimo kale jaaliyad ka go'an raggan u nimi tusaale ahaan UK oo kale rag maraakiib raaca oo badmareennaa qaarna beriga ka shaqeeyaan oo markay soo degaan iyagu makhaayado gaara leh oo aan dadka dhex gelin maanta tii way isbedeshay caruurihii ku dhashay qurbuhu waxay ka mid yihiin dee societieska ama dhalinyaradii dee ku kacaantay marka in wadankiina laga warramo ay joogeen dabadeedna iyagana si gaara looga warramo si sawir buuxda markaa looga qaadan karo waxyaabaha ku leeyahay walaal imika tixraac baa laga qaadan karaa hadhow waxaa ka mid ah Iceland dee ma aha wadan Soomaalidu taariikh u lahayd Iceland waa sida imika waabay bateeno ilaa 100 baa joogay 18 baa joogay markaan tegay wadan aynu iska daa taariikh ku lahayna maqallayna moohay Soomaalidu fara badan baa maqlay waa jasiirad yar oo Atlantic ku taal marka hadhow marka laga warramayo jawaab haddii jaaliyad Soomaaliyeed sii jirtay ilaa dadka ka mid noqonaya laakiin marka la yiraahdo dadka madoobe xaggee ka yimaadeen barnaamijkaas la eegaya la oranayaa 18 baa beriga joogay oo kuwa dabcan mid baan ku noqonayaa taa dadka maartay qurbaha aad sheegtay marka aad qurbaha soo gashay dabcan saa sheegtay waxaad ugu timaadeen dad xilliga aad cusbaydeen oo laakiin iyagu xilliga imika aad uga joogtay in leeg iyo in ka badan joogay dardaarna inta badan bixiya hadda simaanada la kulanto dardaarna kulli qaar badan baad ka gunubtay maxaa ka mid ah dardaaranada aanu qaaran kula kulmay ka dhif dardaarna badan bay sheegeen kuwada aanan weligay iloobin laakiin beriga la noo sheegayay aan macnaha faraha badan la noo sameeyay laakiin imika aan arkay waxa ka mid ahaa dee imika 30 sanadood waa ka waqtigu iska xiimo oo sidaaba ma badno anigu 15 baa ka soo qaadaa beriga markay yiraahdaan dhowr iyo 30 ma joogo sidii maxaabiista la yiraahdo habeenkii maalinta la tiriyaa
markay yidhaahaan dhowr iyo soddon baan joogo ayaana soo jiro nin hadduu garan waayey isagoo iskaga tag too cid ka kaxaystana miyuu waayey muu waay nin baa maalintii dambe aan ku idhahda maxaa intaa ku dhigay waay wuxuu idhahda haddii ninku uu halkan ku xaasaysto oo ilaahayna carruur ku siiyo way adagtay siduu u noqdo laakiin intuu ninku kelidii yahay ee aan waxaas yeelan waa u fududahay buu yidhi inuu boorsadiisa qaato deedna iska dhaqaajiyo markaasaan ku ihi waayo wuxuu yidhi waxaad soo odhanaysaa waddankiina waa tii dhibaatooyinka faraha badan li ka jireen waxaad soo odhanaysaa buu yidhi warniga ha yaro roonroonaa meeshii lagulama degdegi karo oo waa kanoo iskuul ha galo oo dabadeedna waxaad soo odhanaysaa wallaahi jaamacadda intan wuxuu yidhi ay marayaan proceska carruurtii adigana dee cimrigaaga u socdaa marka daba soo odhanaysaa buu yidhi oo meesha maxaad kama dooni marka dee waad arkaysaa waxaa jira sidoo kalena ka mid noqoshada dadka waxaad sheegtay dad dhallinyaradan jiilasha intaad joogtay dee bulshadii bay ka mid noqdaan jiilashan ku dhashay ama iyagoo dee yaryar la keenay dardaarnaa jiray baad ii sheegtay oo kale iyaguna in waxay dadka in dalkii lagu celiyo kale inay laba yaabaanba hebel baa carruurtii ku celinaya waddankii wallaahi cabdilaahu qaar fara badan oo isku dayna way jiraan qaar fara badan oo halkan iyagu iska qabatimay ama meelahay joogaan way jiraan laakiin anu midun baan ogay taana ha lagu biyo cabo waxa weeye baahida badankeedu iyo daltabiyadu halkay ka jirtaa waa generationkii hore yimi carruurtan example yar baan ku siinaya marka waddankii la geeyo adigu aada odhanayso waddankii baynu tegaynaa luqad kale una kuugu sheegaan iyagu markuu fasax soo dhammaanaya ka odhanaya dad when are we going home de markaa kale waddan baa tiin mogta idinku xaggii jooga ayuu ilmo ka odhanaya when are we going home because inankaa ama inantaa dee homekiisu waa halkan marka horta halka lagu kala baxaya ee ugu horeysa mar kale home baa tiin ta labaad waxaa jira fursadihii laga yaabo inay meelahan kale ka helayeen waddankii waxaa laga yaabaa inaanay ka helin oo dee mustaqbalka ilaahay bay ku xidhan tahay laakiin duruufihii u saamaxayay maanta inay ku noqdaan ma jiraan waayahay aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo koobaynaa qaybta waraysiga oo ahayd qaybtii koobaad qaybta labaadna waxaad kala socon doontaan isla halkan iyadoo aanu kasii ambaqaadi doono su-aalaha barnaamijkan oo ah qaar aad runtii u xiiso badan cabdisalaan aad baan uga mahadnaqaya cabdisalaan barnaamijkan waxa aan uga mahadnaqayaa dhinaca farsamada guud iyo isku dubridka barnaamijkan ba lahaa oo cismaan qays farsamayaqaan sare iyo cabdisalaan oonu mahadnaqayo dabcan barnaamijkana nagala qayb qaatay iyo dhammaan intii suurtagelisay ayaan halkan uga mahadnaqaynaa waa anigu cabdilaahi maxamed cali intaan dib u kulmi doono meel aad joogtaan ood nagu daawanaysaan waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo